adiga maxaa ku galay fanaannimada inta qaato oo wara meesha dharka lagu dhaqo geef الفنان إلكا عسقيس iyo waliba daahir calasow ayaa si aada isku wajahaya markan dagaal xoogan ayaana ka dhax aloosan labadooda kadib markii daahir cabdulle calasow uu la saftay fanaanka da'da yar ee lagu magacaabo Sharmaboy xog xasaasiya iyo ilka caso oo leh fanaanimada laalaaba daahir calasow ee jeebka gasho ayaan saaxiibayaal muuqaalkeenan idin kula wadaagi doonaa balse muuqaalka intaan u gudagelin fadlan muuqaalka like saar oo la wadaag saaxiibadaada sida aad inoola socoto xogaha aan soo gelino barteenan YouTube iyo Facebook ee Ducaysana Media kuma hadsanid daawade kulanti habboon saaxiibada aynu jecelnahayow meel kasta oo aad dunida daafaheeda ka joogtaan ku soo dhawaada channelkeenan Ducaysana Media warbixinteenan saaxiibayaal waxaan ku qaadaa dhigi doonaa muddooyinkan dambe sida aad la wada socotaan waxaa baraha bulshada hareeyay oo hirqiyay dagaalka u dhaxeeya ilka casaqays iyo waliba Sharmaboy balse arintu sida waa ay ka duwan tahay oo waa ay isgadisay daahir cabdulle calasow oo baraha bulshada caanka isla mar ahaantaana dadka qaarkood ay ugu yeeraan madaxweynaha baraha bulshada ee Soomaalida ayaa waxa uu saaxiibayaal si aada u karbaashay fanaanka lagu magacaabo ilka casaqays isagoo oo aflagaadeeyay qaybo kamida xubnihiisa jirka waxaana sidoo kale ilka casaqays oo jawaab kulul ka soo bixiyay arinkaasi uu sheegay in daahir calasow haatan loo baahan yahay in fanaanimada dhanba uu qaato uu jeebka gasto ilka casaqays ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in arimahan ay tahay arimo faneed waxaana sidoo kale ay iswajahayaan haatan ilka case Sharmaboy walow daahir calasow isana uu dhankiisa dagaal aad u xoogan uu kula jiro ilka casaqays kadib dagaalka oo ka soo bilowday xaaska ilka casaqays ee lagu magacaabo Naciima Joker haddaba daawadayaal ila milicso muuqaal kooban oo uu kaga hadlayo ilka casaqays arinta daahir calasow adiga maxaa ku galay fanaannimada inta qaato oo wara meesha dharka lagu dhaqo geef fanaannimada soo dhaq soo feeree la laaba adiga qaado geesta kale daahir calasow ayaa waxa uu ku baashaalayaa ama uu ku ciyaarayaa heesta uu soo qaaday fanaanka da'da yar ee lagu magacaabo Sharmaboy isagoo oo qaloocinaya afkiisa sidaasina ugu ladan leh fanaanka caanka ah ee muddooyinka 10 sano fanka ku jiray ee lagu magacaabo ilka casaqays taasi oo bahdil aad u xoogan ku ah fanaanka lagu magacaabo ilka casaqays dagaalku aad buu u xoogan yahay muddooyinkan dambana baraha bulshada isaga ayaa haysta kuma hadsanid daawashada muuqaalkan fadlan muuqaalka like garee oo la wadaag saaxiibadaada kuma hadsanid daawade haddii ay tahay markii kuugu horeysay oo aad soo booqato channelkeenan Ducaysana Media rukumo gambaleelka oo la subscribe garee channelkeenan Ducaysana Media follow dhow inagu soo biir page-keenana Ducaysana Media kuma hadsanid daawade tan iyo kulanti dambe nabadiino